كسوايس دافسناي waxaan ku yiri abay macaanto waxaan ku yiri waxaan dhacay maxay tahay ayada ooyeyso waxay igu tiri aboowe jabrow kiisa igu dhacay hadda ka hor waan qarsanayay okay abay kiiskan qaab nacay kugu dhacay saasoo igu dhacay abay maadaama gabar la dhibaateeyay tahay maxaa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya maadaama kiiskan kugu dhacay maxaad u tagi wayday waxay tiri aboo macaan arin igu weyn igu dhacday muuqaalna laga duwa gabar yarna waa ahaa waan nahay cabsi far badanna waa igashay inaan ma taqaana bulshada iyo mustaqbalkayga igu xig inaan ku waayo garbe iga lahaatay waxaan ku yiri waa sax waxaan ku yiri gabar tahay wax kaawin haday kugu dhaceen oo maskaxdaada qaadan waaye waxaan ku yiri of course dib ba u dagaysaa waa fikiraysaa waxay tiri nafteedan dib ma nafteedan dajiyay waqtiyan qaatay waxaan maskaxdeeda geliyay maalinka aniga dhiiranaan am awood helo inaan wixiga xaqayga raasado waxaan ku yiri xaqaaga ma TikTok ka raasanaysaa mis xaqaaga sifa sharciyeysan oo dawladeysan xaqaad u raasanaysaa maadaama waxaan kufsi yahay waxay igu tiri jabrow abo macaane maxaan sameeyaa talana meel aan ka bilaabo ma aqaano waxaan ku yiri maalinkii kiiskan kugu dhacayay guriga oo lagu geynayay ee amaalku kiiskan kugu dhacay ragga qaab noocay kugu soo wajaheen am qaab noocay xagee jaanis lagaaga helay ma fahantay wayga aamustay run ilaaha jecelniyo aniga ben dadka ma taqaan igu ma garanayaan wayga aamustay waxaan ku yiri baay ii jawaab maalinkii kiiskan dhacayay gurigaada ma lagu soo weeray albaabkaada lagu soo jibay oo lagu qabsaday oo kiiskan kugu dhacay waa maya igu tiri okay marka waxaan ku yiri kiiskan ii sababay sidoo kugu dhacaba inaan fahnaara dadka inay fahmaan way rabaan ilaa anaga saaxiib Soomaalida waxaan naqaan waxa la yiraahdo laab ku kac hal mar hal qof ma taqaanaan inta niid u wada furno waxaan sameeynaa waxa la yiraahdo ma taqaanaan laab ku kac ma fahantay waxaan ku yiri abaya kiiskan anaga waxaan ku yiri Robert Ali Sowna ma aqaano adaan ku garanayaa waxaan ku yiri oo walaashii oo gabar Soomaaliyeed oo friends nahay Robert tahan iyo waxa sheegaysidna فلون اسكو ملين اقون اسكو ملين وليين اسمع رك waxaan ka aqaan kiis kale sameeyay igu horeysay nolosheeda ma arag meel wax ka diraxtaan nolosheeda ma arag adaan ku garanayaa oo TikTok aan hayno gabar yar oo farxaaniyad oo ma taqaana farxad badnad anagana wiil gabar haday isqabsadaan mar walba gabdhaha dhankooda ah su'aalaha ku watee markay videoga waxaan dhibaatada ay ku sheegtay taariikhda ahayd ma ku sheegtay iyo maalintay ahayd sanad run misaben runta bil ramadaan lagu jiraa markaliis Allah igu dhigo labada indhood iyo nuurkana Allah iga damiyo waxay ayada ii sheegtay bulshada u sheegaya codadna waa haya laakiin aniga etikiskayga kama mid aha qof waxaan ku wada hadalnaa inaan TikTok keeno qofka haduu ii aaminay waxay igu tiri jabra kiiskan wuxuu igu dhacay 2023 hay tiriya 2023 kiiskan igu dhacay wallahi waan naxay billahi tala xal sidaan gabar ugu naxay wiligay Allah uma ooyin xal sida uu ooyay waxay igu tiri 2023 kiiskan igu dhacay codkan waa haya right now wallahi mobilkayga ku jira 2023 kiiskan igu dhacay halkuu kugu dhacay kiiskan wuxuu igu dhacay tiri magaalada dalka Kenya ee ma taqaan magaalada Nairobi okay waxaan ku yiri kiiskan muu kugu dhacaha hadda maxaa soo cusboonaysiiyay oo timaan iskaga xirtay waxay igu tiri hadda waxaan ma taqaan kiiskan u soo cusboonaysiiyay waxay tahay si aan xaqayga u helo waxaan ku yiri waqtiga saxda ee ma sheegtay waxay tiri waqtiga saxda ma sheegin laakiin waxaan dhahay 2020 rakaata lagu haystay marka ha iyada maya Robert Ali Sow rakaata lagu haystay may videogan yaa iyada ka duuba marka I don't know ani taas ma cadeyn karo wax taas muhiim u fiiri ilo videogan Sir Robert isagu ma qabin gabadhan Sir Robert lagu haysto videogan ina aad dhageyso ani ayada wax sii sheegay ani bulshada u sheegay maayo ani waxaan cid duubtay cid kale ma aqaano fiiri aniga inaan qof been ka sheego ama gabar dulmi loo geysto ina aniga si dulmiyane ina xaq ma ahan صح aniga arinkaas iyo barnaamijkaas ma wareysan ma fahantay laakiin inta ka wareystaan ku sheegaya oo cadeemana ka haya gabadha waxay igu tiri waxay igu dhahday gabadhi saasay arinka igu dhacay si hada idin sheegay okay waxaan ku yiri Nairobi kugu dhac Soomahan oo aniga marka halka su'aal ay soo dhaxbaxday ilaa hal waqti soo wareysanaysan hayo waxaan ku yiri abayo qaab noocee waxa kugu dhaceen
oo qaab noocee lagu kufsado fashilkan mishinkan yaa ku degay iimaysa sheegin abaayo bulshada Soomaaliyeedna maanta maalin ahayn way ogaan doontaa ma fahantay waxaan ku yiri qaab noocee lagu geystay waxay igu tiri aboo macaanow aniga wax sadina ka hadla marabo waa wareersanahay abuuqa igu furan okay waxaan ku yiri isdajaan ku yiri biyacab waxaan ku yiri ma taqaana naso bas 30 daqiiqo u saarnaa koolka way nasatay haddana isla su'aasha ugu celiyay haddana isla sidoo kale ma taqaana igamaysa jawaabin gabar waxay soo wacday reer Muqdisho hal yiraahdo Roro waxa la yiraahdaa Reero Axmed al lahaa gabadhan waxay saaxiib ahaayeen gabadhaas ciish wadaagna way ahaayeen qofka bil aadagan waxay dhaho gabadhaasna caaw hadii la dhaha keenna waa keen karaa